intii uu socday dagaalkii 1977 ee dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliya, diyaarad nooceedu yahay MiG-17 iyo duuliyihii waday oo burburin ku waday saldhigyo ciidamada xabashidu leeyihiin ayaa u gacan gashay ciidanka cirka ee Itoobiya. Sargaalka ka tirsanaa ciidanka cirka ee Soomaaliya una gacan galay ciidamadii xabashida waxa uu ahaa mid ka mid ah hurmuudka ciidamada cirka, xeeldheere ku wanaagsanaa gadgadoonka miigga, shakhsi ka mid ahaa foolaadka ay ku dhaartaan ciidanka cirka ee dalka Soomaaliya. Markii ay Itoobiyaanku yaqiinsadeen inay hawada ku qabteen diyaaraddan iyo duuliyaheeda, waxaa mar qura isqabsaday gudaha Itoobiya dabaaldegyo iyo fantasiyo loogu dabaaldegayo guushaas weyn, halka dhanka Soomaaliya ay murug iyo filanwaa ku noqotay shacabka iyo dowladdii militariga dhawaaqa dhiilada leh ee soo gaaray. balse saacada kadib wax waliba waxay isu rogeen dhinaca kale. waxaa mar qura hawada Soomaaliya soo galay diyaarad MiG-17 ah, waxaana mar qura dhagaha ciidamada cirka Soomaaliya ku soo dhacay waa duuliye Cabdulaahi Weydow Maxamuud oo ku guda jira shaqadii qaranka. dhawaaqaas waa mid ka yimid diyaaraddii MiG-17 iyo duuliyaheedii ee ay Itoobiyaanku ku faaneen inay qabteen, balse duuliye Cabdulaahi Weydow uu diiday inuu isku dhiibo cadow dalkiisa iyo dadkiisa weerar ku ah. muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa kuma uu ahaa duuliye Cabdulaahi Weydow Maxamuud, sidoo ugu gacan galay ciidanka cirka ee Itoobiya, maxayse ahayd xaaladda uu adeegsaday si uu uga soo baxsado ciidanka Itoobiya. haddaba ku soo dhowaada taariikhda duuliyihii qarniga ee soo maray ciidanka cirka Soomaaliyeed. duuliye sare Cabdulaahi Weydow Maxamuud wuxuu ku dhashay magaalada Buulaburta ee gobolka Hiiraan sanadkii 1940. halkaas ayuuna dugsiga Quraanka iyo iskuulka ka bilaabay. kadib waxa uu u soo wareegay magaalada Muqdisho, waxa uuna ku qaatay waxbarashada dugsiga dhexe iyo kan sare. kadib markii uu ka qalin jebiyay dugsiga sare, waxaa loo qaatay macallinimo sanadkii 1962 isagoo ka soo shaqeeyay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. sanadkii 1963 waxa uu ku biiray ciidanka cirka Soomaaliyeed. waxaa loo diray dalka Midowgii Sofiyeeti si uu u helo tababar sare oo ku saabsan hawlgallada cirka, gaar ahaan dhinaca farsamada diyaaradaha. intii uu halkaas joogay, wuxuu helay waxbarasho dheeraad ah oo ku saabsan duuliyanimada, isagoo muddo 3 sano ah ku qaatay tababar iyo takhasusyo dheeraad ah. sanadkii 1965 ayuuna dib ugu laabtay dalka, isagoo si buuxda u dhammaystay waxbarashadiisii duuliyanimo iyo farsamada diyaaradaha. wuxuu noqday duuliye xirfad sare leh, waxaana la siiyey darajo uu ku helay aqoontiisa, isagoo ka mid noqday duuliyayaasha ciidanka cirka Soomaaliyeed. wuxuu duulin jiray diyaaradaha dagaalka ee noocyadoodu yihiin MiG-17 iyo MiG-19. sanadkii 1977 wuxuu si geesinimo leh uga qayb qaatay dagaalkii Ogaadeen, isagoo door weyn oo lama ilaawaan ah ku lahaa dagaalkaas. intii uu socday dagaalkii 1977 ee dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya, labada dal waxay isku adeegsadeen wax waliba oo ay heli kareen, waxayna iska weerareen cir iyo dhulba. duuliye sare Cabdulaahi Weydow wuxuu ka mid ahaa saraakiisha ciidanka cirka dalka Soomaaliya, wuxuuna ahaa foolaadka iyo mid ka mid ah burburiyeyaasha ku xeeldheeraa baabi'inta fariisimaha cadowga. maalin ka mid ah maalmihiisii dagaalka, isagoo burburin ku wada fariisimaha cadowga, waxaa garbaha ka galay oo hawada ku qabtay diyaaradaha dagaalka ee ciidamadii xabashida, waxayna amar ku siiyeen inuu isdhiibo, diyaaraddana ka dejiyo garoon lagu magacaabo Depreciate Airport oo ay lahaayeen ciidanka xabashida. duuliye Weydow ayaa u muuqday mid qaatay amarka ciidanka cirka ee xabashida, waxa uuna diyaaraddii uu wada ka dejiyey garoonka Depreciate. markii uu dejiyey diyaaradda, damiirkiisa ayaa siin waayey inuu isu dhiibo cadowgiisa isagoo caafimaad qaba. waxa uuna mar qura diyaaradda siiyey gaas fara badan, isagoo ku furay qaac badan ciidankii cirka Itoobiya ee dhulka joogay. ciidankii Itoobiya oo arrintaasi filanwaa ku noqotay ayaa risaas miirbeel ah ku furay diyaaraddii duuliye Weydow ee baxsatay, waxaana xabado ka soo dusay diyaaradda ay lugta bidix uga dhaceen duuliye Cabdulaahi Weydow. balse duuliye Weydow ma uusan u joojin dhaawacaas ee waxa uu diyaaraddii uu waday ka soo dejiyey magaalada Hargeysa, waxaana isla markiiba dhaawiciisa loo soo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka. Cabdulaahi Weydow wuxuu ahaa duuliye muddo 20 sano ah ka shaqaynaya ciidanka cirka, wuxuuna gaaray darajada gaashaanle sare. intii uu u adeegayay dalkiisa, waxaa la guddoonsiiyey billadda dagaalka ee dahabka ah ee geesinimada, taasoo lagu maamuusay geesinimadii uu ka muujiyey dagaalkii Ogaadeen ee sanadkii 1977. waxaa xusid mudan intii lagu guda jiray dagaalka in duuliye ka tirsanaa ciidamadii xabashida la qabtay kadib markii la soo riday diyaarad uu duuliye ka ahaa. duuliyahaasi wuxuu si gaar ah u codsaday in lala kulansiiyo duuliye Cabdulaahi Weydow,
Si kastaba ha ahaatee ma aysan suuro gelin oo looma oggolaan. Arrintaas waxay muujinaysaa heerka uu gaarsiisnaa magaca iyo geesinimada Cabdulaahi Weydow. Duuliye Cabdulaahi Weydow Maxamuud muddo ayuu xanuunsanaa, xaaladdiisuna marba marka ka dambaysa way sii liicaysay. Ugu dambeynna waxaa loo qaaday dalka dibaddiisa si loogu sameeyo daaweyn caafimaad oo heer sare ah, iyadoo la rajaynayay inuu ka soo kaban doono xanuunka hayay. Nasiib darro, xaaladdiisa caafimaad wax badan iskama beddelin, sidaas darteedna waxaa dib loogu soo celiyey dalkiisa hooyo ee Soomaaliya. Markii uu dalka ku soo laabtay, waxaa la geeyey isbitaalka ciidamada xoogga dalka ee magaalada Muqdisho, halkaas oo uu ku qaatay maalmihiisii ugu dambeeyey ee noloshiisa. Sanadkii 1984 ayuuna ku geeriyooday isbitaalka xoogga, waxaana lagu aasay magaalada Muqdisho. Allaha u naxariistee Duuliye Cabdulaahi Weydow Maxamuud wuxuu ahaa halyey qaran oo si weyn looga qadariyo geesinimadiisii iyo kaalintii uu ka qaatay difaaca dalka. Wuxuu ifka kaga tegay wiil iyo gabar, kuwaasoo xilligaas ahaa carruur yaryar. Inkastoo uu geeriyooday, haddana magaca iyo taariikhdiisa weli waa kuwo nool oo la xusuusto. Waxaana halkaas ku eg taariikhda duuliyihii qarniga Cabdulaahi Weydow Maxamuud.